walba isku sheegi jirnay ii sheeg markaa waxa jira aad ku mashquulsan tahay marin iga weyn baa jirtay misaanaad markaa igu shaafin kareen waxa dhacay wuxuu igu yiri oo igu dhigayba hadalba kuma socodin Mustafa markaa wali baan dareemay waan naxay waxaan ka Mustafa maada ka xanaajiyay meel kale ku dhibaataysan adu hadal badan ma fiicna Mustafa maalintaas way sanad markaa ka soo waqti bishii fudaad 2018 ay tahay ayaa Mustafa oo markaa nambarkiisa sidii uu xitay markastaan WhatsApp ku qoraal leeyahay walaal maxaa dhacay dhibaatada dhacday ii sheeg maana ka xanaajiyay meel kale markaad ka xanaaqsan tahay dhibaatada dheefto wada qaybsan jirnay barbarkaaga taagan hadii wax walba ka khaldeen inaan bal aan isku dayo inta awoodeyda inaan ku saxo ima soo jawaabay Facebook dhinac walba oo qoray ilaa markii dambe gaaray heeru Mustafa lambarkiiba xidho inuu bedeshayna aan markaa u maleynayo Faaduma wax kasta oo dhaca nafta waxay ku waanisaa malaha uu shaqeynaya malaha hawlo kale ayuu ku mashquulsan yahay oo nafteedu maba keenayso sawirka ah Mustafa nin xun ah ama ku xumeynaya Mustafahuna waa aba Mustafa galbaday Faaduma waxay gashay marxalad xanuun hilibkeedu wuu dhamaaday caafimaadkeedii daweyn ay qaadato ayuu ku dambeeyay cunto la'aantii iyo soonkii jacaylka ay u soomaneed waxay ka qaaday xanuunka gastriga 3 bilood sariir jiif ayay ahayd waxay isku daldashaa ama ay hurdada ku seexataa kiniinka hurdada keena 3 bilood ay markaa Mustafa aad u jeclaa mar walba waxaan isku maaweelin jiray heestaan iska dhigeysan jiray mar walba salaadan badsan jiray markaa Mustafa xanuunkiisa iyo jacaylkiisa gaastiri ma ka qaaday haddana gaastiri waa qabaa waxaan yaraha qof yara hilboon markaa laakiin hilibkiina waxa noqday qof markaa quri oo mariya xiran ka tabaan camal oo kale 3 bilood Mustafa jeclaa cuntadii waan ka go'ay hurdada habeen walba waxaan isku markaa madadaalin jiray ama ku seexan jiray farmasiyadan ka siibsan jiray kiniinka hurdada waan cuni jiray dhowr inaan farmasiya haystay guuran jiray siinaysan sanad jiray awowgay xanuunsanayo seexan ayaa kiniinka la siiyaa xaaladii Faaduma si xumaatay ehelkii Mustafa gabadh kamid ah oo ay dariiqa isku wareysanayeen horena ula socotay xiriirka ka dhaxeeya Faaduma iyo Mustafa ayaa u sheegtay Faaduma guurka Mustafa waana halka ay Faaduma ka ogaatay inuu Mustafa guri galay guursadana gabadh qurbo jooga marka jacaylku dhibaato badan yahay inagoo inuu cilmi iyo hodan iyo dad badan ay u dhigtaan dad badan ay u dhaawacayeen dad badan inay isku deeyeen jacayl awoodo jacaylka dadkan marka badiisa ku jira waxa dhaca maxaa qof bad jeclaanaysa sida bad u jeclaan karta qof markuu ka tagana waa laga samraa horta waxaan u sheegayaa Soomaalida inaan jacaylka laga samri karin qofku ku xumaynay haddana wanaagiisii baad xasuusanaysaa Mustafa marka inta yar waxaan soo leeyahay Mustafa mashquulsan yahay Mustafa waa sidan marka aniga nafteeda dib u dejin jiray Mustafa waa nin danaystay gadaal aan ka ogaanay inuu marka Mustafa uu guursaday walowna marka wax loogeey anagu hadan hablanahayna inamada waxa ku dooran jirnay qof dibadda ka yimid inuu family lacag leh ka soo jeedo inuu isagu lacag leh waxaas ku dooran jiray laakiin inamada hadda inantii dibadaha ku dooranay inay dhoofiso inan lacag leh waxay marka hawlahaasi galeen wax walba nafsi bay leeyihiin sheekadaydan waxay turjumaysaa nafsiga inankii 3 bilood aan jeclaan aan biyo iyo wax walba uga go'ay ee halkaas qalashay maalmaha kamid 3 bilood ka soo wareegtay ayaan markaa subax adeeg doonay ana isku maaweelinay shaqada guriga dharmeedista adeeg doonista waxaas marka aynan amal dhigi jiray oo inanka isku kay taqaanay ilmaadeerna ay haayeen oo sheekadeeda wax ka og ayaa markaa tiri iska soo horbaxnay beesayta Allah na walaal ma Faaduma ahayn oo maxaa kugu dhacay marka baa walaal maalmaha la xanuunsanay gaastiri way igu dhacday markaas tiri walaal waa ka xumayna marka Mustafa kala hadeen waan ka naxay sida uu kala hadeen Mustafa markaas baan ku walaal waa caadi dhibaato ma jirto dad isqabaaba kala tagaba marka dad xiriir ayaan ahayn kala tagayna macna weyn ma sameeyay marka amal ima yogeyn inaan marka isagu iga tagaano si dhab isku jeclaa markaas waxa tiri waan naxay marka arkay sawirada meherkiisa gubigayga wallahi wadnaha bay gariiray Faaduma si dhab isku jeclaayeen laakiin asaw kala tagtaan ma yahayn أنا مركان نحي لكن عندي ذيو إني أعمل نيتي دوجاتو أيام كودي أنا وسوي يرد على عطيني ده وان ستيل يا دي بعد صار بهالك كذا أيام كودي وأنا جاي نقول سدي وأنا هم بلينا يا ولكن مصطفى مركان مالن تسمعن هذا مركب بدن بهاد بيشي صدحات بهذا مركز سنة كاس
2018 naf yaroo marka hore igu jirtay waan islahaa Mustafa ma dhalin kuma qabo ubaduguma samraysid soo noqoshadiisana ka samir maadaama aan sabab kaaga tigin adoo jecel ka tigin xitaa aan ku cadin wuxuu kaaga tigin waxaasna kaaga tigin maca salaamana Mustafa waxaan ogaaday inuu guursaday gabadh qodaa ka timid aan gadaal ka ogaaday inuu markaa guursaday gurigii baan tagay naftiiradii ku jirta way iga dhacday qolbaan hoos ka xidhay anoo markaa ilmeynay كمان حمين مصطفين المستقبل كاري كمان أنا ويجي إنه قوسدي لكن وحن كلمة بيانسا يسود قلبي جيجا وجهي أنا الصومالية ده لورد أرسبان هاي لكن وحو كفايدة ينقلون من مصطفى إنه الصوت كذا شذا أنت عليه ومركا قلبي جيجا قصة معي تياب ليته أنا تيرايوي هبل تصيو حاجة توجي نصيبك ويتسمع ugu dambayn Faaduma waxay waliishaba go'aansatay qalbigana ka saartay Mustafa 3 bilood kadib qof aanay codkiisa garanaynin ayaa soo wacay wuxuuna u sheegay inuu Mustafa yahay qofkan la hadlaya Mustafa waxa uu waqtigan guranayaa midhihii nafsiga gurigii uu dhisay bil kaliya ayuu taagnaa isagoo faramaran ayuu Faaduma la wadaagayaa wixii ku dhacay iyo halka nafsigu dhigay Faaduma se iyo ixmidna ma leh oo dareenkii xaqiisuba uu ka guuray marka waxaan maleynay bishii 9aad ahayd adu 6 bilood ka 3 bilood ka soo wareegtay bishii 6aad bay ahayd ay marka Mustafa soo waxay anigu marka lambarkaygiina aan wali bedelin laakiin Facebook-giisina iska saaray WhatsApp-kiina iska saaray anafteedana marka aan idhi Mustafa uu guursaday ilow marka wax kasta ilow calafkuna wuu jiray hadii ilaahay tii calaf ku siiyay gabar kale inuu aroosto calafkay jacaylkana markasta calafka weyn Mustafa maalintii waan nafteeda waaniyay kana haray una hibeeyay qalbigana ka saaray xaaskiisa ay nolosha quruxda badan uu galay 3 bilood kadib soo wacay Mustafa isagoo ii sheegay marka inta codkiisa garan ba waayay salaam alaykum wa qof ma waa Mustafa waa ban ilaa wayma kuma jirtid xaskaygi bariya ku xalaaye xisaaga dibti kuma jirtid xaskaygi bariya ku xalaaye xisaaga dibti marka qofku inta isku taxalloojinay sida ma inta u samri lahayd inaad ka samirtid baa wanaagsan inaan marka aad u saaxiibnahay Kawsar Cabdullaahi taala doon aad u salaamay oo marwaa ay wax igu talin jirtay inta u samri lahayd ka samir Faaduma ninkaas halka ku ilo waxaan marba xasay jiray Mustafa inuu wax nagu sameeyay inuu noloshayda oo dhan mugdi iyo madmadow galiyay 3 bilood kadib Mustafa soo wacay markaasaan ku Mustafa walaalday waxa tahay walaal guri degan xaas baad leedahay ilaahay ku barakeeyo gurigaaga iyo xaaskaaga maca salaama ma meel aad igala soo hadashay joogan Mustafa wuxuu sheegay marka hadal badan inuu marka nafsi helay inay gabadhi kala tagaan inuu ku galay marka dhoof iyo dana gaara ana Mustafa marka sii dhigaysan wuxuu ka sheekeynaya xasuusan xumaanihii badnaa igu sameeyay kastaan ahay qof calool xun laakiin haddana waxaan dareemayaa inuu Mustafa wax xun sameeyay isagoo heli karaya xiriirkeena u dhamaaday isagoo heli karaya mid ka wanaagsan baan haddana mugdi iyo madmadowga aad baan u necbaa Mustafa wuxuu sheegay markii dambe in gabadhay kala tageen inay bilis qabeen hargeysa wada degnaayeen kadibna ay ka tagtay warqad ka soo dalbatay wax noocaas arrimaana marka aan ku farxin kana naxin waayo aniga Mustafa qabistiisa iyo furistiisa faygaga ma xidno wiil Soomaaliyeed aan isbarno dirisnahayn in badan aan jeclaaday kana basay jacaylku wuxuu yahay ayuha barnaamijkayga iyo sheekadeedana waxay marka ka turjumaysaa qisooyinka jacaylka iyo qiirooyinka imika ba jiro dadkii qofkii lacag ku dooranayaan inantina inkay lacag ku dooranayso laakiin aan marka kalsooni halkii ay ku dhimanayso kalsoonida marka hablaha waxaan leeyahay mar walba waxaad ku dadaashaa inaad qofka daacad u haatid qofka daacad ah marnaba ma jabo ilaahay baa garabkiisa taagan maama Soomaaliyeed baa ahayd daacadnimo gowda Mustafa Cafis Talbay gabadha dhoof ayaan ku galay 7 ayaan Facebook xiriir ka wadaagnay hargeysa ayay timi degdeg ayaan soo aroosnay waan ku hoos taaganahay cafi soo laabo hadallo noocaas ah ayuu Mustafa ku boobay Faadmo oo telefoonka kala hadlayay
iyadiina ugu dambayn markay dhagaysan kari wada hadalladiisii taleefankii ku dhigtay meel kasta oo uu kala soo xidhiiri jirana way beddeshay. inankii qaraacis badan marka wuxuu dhahay cafis baan kaa dalbanayaa, waan ku hoos taaganahay, Faadumo khalad baan sameeyey. gabadha markaas facebookaas ka barnay muddo 7 aan isnaqaan Hargeysa tin wax noocaas oo hadalla markaan nafteeda uba baahnayn oo qof tashtaday marka Mustafa hadalkiisa uu dhibayo ayaan ahaa maadaama uu qalbi jabay qalbiga jabay waa muraayad marnaba sideedii ma noqoto ka hadalka Mustafa isagoo idhibaya wadiis Mustafa habeenkii mobilka waan ku dhigay lambarkeen waa soo bedeshay isla markiiba lambar baan markaa soo furtay cusub Facebook ugu yaqaanina magacayga Faadumo waan bedelay magac kale ayaan samaystay. Mustafa xaggana eed dhoofkii iyo gabadhii uu dhaldhalaalka adduunku raacayna cawda ayay u soo jartay. Faadumana u soo noqon weyday oo albaab kasta way ka xidhay. xanuunkuna isaga ayuu ku